roobab lixaad leh oo muddooyinkii dambe ka da'ayay santarka Heegale ayaa waxa ay roobkaasi sababeen in gebi ahaanba ay fatahaado lixaad leh ay geystaan isla markaana fatahaadahaasi ayaa sababay inay geystaan khasaaro naf iyo sidoo kaleba maal ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa sidoo kale waxa ay fariimo dheer u direen hay'adaha samafalada iyo sidoo kale dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaana dadku ay sheegeen in fatahaadahan ay sababeen kadib markii uu soo fatahay baliga ku yaala deegaanka Heegale waxaana dadku inta badan ay gebi ahaanba ka bixeen guryahooda ayagoona xilligan dibad jooga qaar ka mid dadkaasi oo la hadlay Kalson TV ayaa ka warbixiyay xaaladda guud ee deegaanka Heegale waxaana hadladoodii ka mid ahaa halka cunaha markii ay aniga marayso laba caruurana aan shandada korkood intaan saaraysaa u hayo yaa dad aan dhalay oo xaafada ka soo orday ii yimaadeen aniga iyo laba caruur buu laabta midna gacanta ku jiiday midna laabta ku qaaday marka inta aan xidhnahay wixii aan watay mood iyo maal isagii inama dib ugu noqday oo 7 riyaad meeshii ka soo saaray argii noo xariisna intii kale balligaas waxaan soo gaaray waxsaanaha farabadan hadaan wanaagsan Heegale deegaanka gaar ahaan aniga aan 7 neef ay joogay waxaan ka arafay 10 neef guriga waxaan qaatay biyo waxa la cuno iyo waxa la xidho midna kala aan saddex qoyskan ka tirsanaa oo isku jira laba gabdhood oo aan dhalay iyo aniga dad mooyaane anagu dooyo mahay arigii waxba iga hadhay xaafadaha iminka xidhan go'doonka dadkii deganaana waa laga soo daadgureeyay banaanka loo saaray oo iyaguna iminka wax ay gacanta ku hayaan ma jirto waxaan ugu baaqayaa oo aan aad iyo aad mataqaana ugu dhiirigelinayaa dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan kilinka shanaad Soomaali weyn qurbaha meel kasta ay qof Soomaali joogo waxaan ugu baaqayaa in ay gurmadka dadka lagu taakuleeyo Soomaaliyeed ee dhibaatada weyn haysato ay ka soo qayb qaataan madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaaliyeed Mustafa Maxamed Cumar waxaan leeyahay madaxweyne dadkani waa dadkaagii waad aragtaa sawirkooda waxa ku dhaxay meesha ay hoodeen waad aragtaa madaxweyne waxaanu ka codsanaynaa dadkan gurmad degdeg ma jirto ilaahay habeen hore iyo habeen aan kala soo galiyo meel ay wax ku kasanayeen dab ay shidanayaan xaaladooda imika nololeeda qoftaruuga ayaa aad u adag waxa jirta xaalad caafimaad darro ayana walwal ka qabno oo xoolihii fatahay biyuhu qaateen ku jira biyaha oo baliga durwaran ilaa saaka wixii tabartayada aan ka soo gurnay qoysaska barakacay hadii aad dib ugu laabto iyo hantiga maharada ee burburaadii aan xoogay dib ugu laabto iyadoo ay jiraan gudiyo aan u xisaaray oo u fuurgalay xaaladda dhabta ah ee qoysaska barakacay iyo xoolahooda burburay iyo maxaa ku dhaca meeradaha ganacsiga burburay gudiyo aan u xisaaray baa jira gudiyada faahfaahin doona hadii aan xog ka sii bixiyo sida gudida la shargaysay ama la soo wadaageen meeradaha burburay maxaa ku dhaca dadku waxyeeleeyay u qaaday boqol meeradood iyo in ka badan hantiga ku burburay dhaqaalaha ku burburay waxaan ku ashmin gareynay ama lagu qiyaasay ama ay xog ku bixiyeen dadka maartay dhaqaalaha ku burburay markii la wareystay $75,450 iyo 7 neef oo ariya 567 neef oo ariya baan ku qiyaasnay waxa uu dadku gaaray biyo ay fatiyeen reermiga u jira hal saac iyo badh Xuseen Xasan Cadde telefishinka caalamiga Kalson TV